بسم الله الرحمن الرحيم runtii safarka waxaan ku tagay wadanka khaliijka Carabta safarkaasi runtii wuxuu daarnaa dardargelinta howlaha xisbiga oo runtii waqtigiisii ay ahayd inaanu tagno meelaha soo marnay waxaa kamid ahayd magaalooyin badan baanu soo marnay Sacuudiga kamid ah magaalooyinka magaalo kasta wallahi si aad u qurux badan oo aad u fiican bay nagu soo dhaweeyeen dadkeena ka soo jeeda muxuu ahaay dalkeena Somaliland marka loo eego dhinaca muxuu ahaay khaliijka iyo wadamadan muxuu ahaay Europe way kala duwan yihiin waxay ku kala duwanaayeen hadda khaliijka ma Carabta inta badan dadku markay ku soo dhaweynayaan waxay ku soo dhaweynayaan community Somaliland oo dhan oo saddex xisbi qaran inta badan uma kala fadhiyaan runtii soo dhaweyn wanaagsan oo aad u fiican ayaanu kala kulannay daarood inta badan waxaan kala hadlaynay xaaladii guud ee Somaliland iyo halka maanta ay wax marayaan iyo taageerada aanu raadinaynay anuu kolay markastaba xisbiga wadani si loo taageeri lahaa runtii arrimahaas oo dhan si fiican oo wanaagsan oo mugle ayay noola qaateen dadku mid way ka sinaayeen Somaliland runtii dee waxa weeyaan dee muddo badan baynu caalamka ka dalbanay ictiraaf laakiin ilaa imika dee ictiraaf caalamka kama hayno laakiin runtii waxaynu ka haynaa wada shaqayn aad u wanaagsan ayaynu caalamka ka haynaa hay'ada caalamiga si wax laynoola macaamilaa dee dowladaha la aqoonsiga oo kale laynoola macaamilaa waynu runtii waynu gaari doonaa himiladeena iyo taargetkeena inagoo midaysan oo dhinac wada jeegna haddii insha Allah dadaalka aynu xoojino waynu gaaraynaa runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa golaha deegaanka ee degmada Shifa oo wallahi tallaabo wanaagsan oo aad wanaagsan qaaday aad iyo aad buu mahadsanyihiin aad iyo aad baan arrinkaa usoo dhaweynaa waana arrin loo baahnaa runtii socodka aanu khaliijka ku tagnay si aad u wanaagsan oo aad u fiican buu noogu soo dhammaaday waftiga markaa guddoomiyuhu hogaaminayay waxay u baxeen dhinaca iyo muxuu ahaay Euro Ingiriiska iyo badax ayay aadeen aniga iyo xogeeyay guud ee xisbiguna howlaha xisbiga ayaanu usoo noqonay annaga nabada Hargeysa ku soo noqonay wallahi safarkaasi guul aad u wanaagsan buu noogu soo dhammaaday aad iyo aad waan ugu mahad celinayaa dhammaan dadka sida fiican ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad bayaan mar labaad aad iyo aad baan ugu mahad celinaya runtii anigu xisbi ahaan wadani ahaan de waxa weeyaan waanu dadaal badan baanu wadnaa gobolada iyo degmooyinka de waynu xisbiga ugu dhisan yihiin laakiin haddana dardargelinta xisbiga kolley wataan imikaba way midtay oo halkan waxaan kulleyto insha Allah rajeynayaa in aan sabtida haddii alla yidhaha xisbiga gobol iyo heedimo kulan kula qaato dabeedna waxaanu kulankaas u daaran yahay si loo dardargelin lahaa howlaha xisbiga ee gobolka iyo degmada haddii la yidhaahdo waqtiguna uu iska kooban yahay oo dee waxaad ogtihiin waqtigii diiwaangelinta codbixisha la bilaabayay waa bisha 9 sanadka aynu ku jirno 4 bilood bay socon doontaa marka doorashada insha Allah waxaan ilaahay ka rajeynaynaa madaxweynaha Siiraayo uu ballan qaaday markii ugu dambeysay inaanu muddada doorashada dib u dhigaynin aanu waxba ku kororsanin marka doorashadaasna ilaahay waxaan ka rajeynaynaa in telekoomkaasna codbixiyaasha si fiican ugu dhaco doorashaduna inay waqtigeeda dhacdo kursiga madaxweynaha ilaahay u qoray ayaa kulli ku fariisan doonta laakiin waynu wada dadaalaynaa ilaahay waxaan ka rajeynaynaa guul runtii inaga dhibaatada ugu weyn ayna haysataa marka waa dhibaatada adduunka geeska Afrika oo dhan ay nala qabo dadka marka la yiraahdo waxa la sameynayaa diiwaangelinta qofka wuxuu doonayaa inuu ilaa intaas oo kale carbon haysan waxyaabaha nacam aad dhaawacay badan inuu geystay anigu waxaan xisbahan aad iyo aad u soo dhaweynaa wax kasta oo lagu xakameyn karo inaanu double vote nagu dhicin in laba jeer aanu qofna ka qaadanin oo kasta ama isha laga sawiro ama wajiga laga sawiro wax kasta oo qofku inuu ku noqdo u saamaxay hay'aduhu hadday sameynayaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaa وانا أنت وميمسن اللي جوا كان كرو
muxuu ahaayey telekoob wanaagsan oo fiican kaar wanaagsan oo ku bixi karo waa dadka keliya ee hadhowa doorashooyinka lagu kala bixi karo haddii la helo muxuu ahaayey diiwaangelin saxa oo xora oo xalaala waa su-aal aada wanaagsan muxuu ahaayey su-aashaada weydiisay horta runtii ceergabo de waxa weeyaan xisbigu waxuu ka mid yahay taageerayaasha hantida bixinaya unbay qaar ku jiraan xisbigii hadda imika waxa weeyaan inagu reer somaliland dadkeenu horumarka aad buu jecelyihin ama gudahaba ha noqoto ama dibadaba mar kasta oo fariisan la sameynayo iyo mar kasta oo qaaraan la bixinayaba dadka qaaraanka bixinaya ama ceergaabo ha joogaan ama boolma ha joogaan lacagta bixinaya mar kasta waxay ku jiraan de waxay kala taageersiyiin saddex xisbi qaran marka anagu waxaan leenahay dadka ugu lacagta badan la imika ceergaabo runtii ee hantida wadada bixiyey waxaa u taageerayaasha xisbiga wadani mar walbana anagu waxaad ogeydeenada maramadoona anagoo urura oona xisbi qaran gaadhin oona ka qayb qaadanay wadada dalooyin booramo weli waxaan ururkii ugu horreeyey marka 15 ururaanu ahayn si la noogu daydo ururkii ugu horreeyey halkaa gacan ka geystaan ahayn mar walbana arrintaa waan xusnaa waayo ururada kalena in lagu daydaan bandooyin mas-uuliyaana laguma dayin waxaa kaloo iyaduna jirtay waddooyin badan baanu ka qayb qaadanay waddo kasta iyo wax kasta horumara oo dalkeena geyigeena muxuu ahay somaliland dowladeena ay dalkeena laga qabanayaan ama waxaan diyaarunay mar kastana waxaad wixii wax qabada ka qayb qaadano ayaan aad iyo aada u jecelnahay sababtoo ah de wax qabadku waxa weeyaan waa horumarka dalkana cid walbana waxa weeya inay ka qayb qaadato waxaad arkaysaan maaha iminka xukuumadda maanta jirta runtii dee tvga afka dowladda ku hadla muxuu ahayey dee uu buunbuuniya xukuumadda muxuu ahayey haddii meel yar dhagax dhigto waa la buunbuuniya laakiin anugu runtii waxaan leehay ilaa imika wax la buunbuuniyo xukuumadda ma qabin waayo somaliland hawlo badan dhul badan bay soo martay baa kasoo bilaabay iyadoo dadku qabaa'il iyo quri wada haystaan sida ilaah naxariista jannaha ka waraabiya cabdiraxmaan tuuroq xaalad adag buka ayuu kusoo beegnaa cigaal wuxuu kusoo beegnaa isaga laftiisu xaalad adag buu lasoo maray madaxweyne rayaale waxqabad badan buu runtii ka tago la taaban karo dimuquraadiyadda iyo asxaabta badan iyo doorashooyinkii badnaa iyo waxaasoo dhan baa madaxweyne rayaale lagu xasuustaa midda kale waxaan aada iyo aada madaxweyne rayaale caalamka maanta lagu xasuustaa waxaa kamid ah doorashada geeska africa intay doorasha ka dhacday doorasha intay ka dhacday madaxweynihii ugu horreeyey ee si xora u wareejiyey markii kursiga laga helay maaha habeenkii doorashada laga helay rag badan oo muxuu ahayey udub ahaa ani markaa mucaarad baan udub ku ahaa laakiin ragga ugu dhadhawaa wasiiradiisa waxay ku qasbeen rayaale inuuna wareejinin xilka natiija soo baxday uu ka adkaystay taasi maanta waxay u keentay inuu caalamka ka helo soo dhaweyn badan ka helo runtii arrinkan madaxweyne rayaalana aad iyo aad baan waagii ugu taamideynay waana waxa looga fadhiya cid kastoo tala qabata in marka laga helo in xilka si wanaagsan u wareejiso waana wax dimuqraadiya loo samaystay runtii halkan waxaan ka usi lahaa waxaad ogtihiin xukuumadda maanta jirta inta badan imika xaggii saxaafadii dib ugu soo noqotay hubaal baad ogeydeen haatif ayaa iyadna imika la haystaa runtii xukuumadda imika waxaanu soo jeedin lahayn inay ka dayso cagajuglaynta iyo digdita inay saxaafadda madaxa ka dayso waayo inagu somaliland dimuqraadiyad baynu qaadanay dimuqraadiyadda aan qaadanay waxayna faraysaa waxa weeye dimuqraadiyadda biiska ugu weyn waxa waa saxaafaddu waxa weye waa cidda keliya ee laga oran karo dimuqraadiyaddii waa cidda keliya ee lagu cabiri karo qofka shucuurtiisa uga cabiri karo iyo waxa uu rabo cid baa rabta inay dowladda taageerto halkaas uga cabiraysa cid baa rabta macaalimideeda inay caddaysato halkaas uga cabiraysa marka haddii saxaafadii la caburiyo de waxa weya caalamku wuxuu oranayaa waxaynu noqonaynaa muxuu ahayey cid doonaysa in dimuqraadiyaddina socodsiiso haddana saxaafadii caburaysa dimuqraadiyadda markaa saas aynu qaadanaysa aynu doonayna inaynu socodsiina runtii damage baa gaariya caalamkuna aad baa arkaa muxuu ahay ildheer uga haya waxaan u diri lahaa kulle in guddiga dhisha la iskaga dhigo si loo dirdelgelin lahaa howlaha xisbiga oo waqtiguna dhow yahay waxaan aada iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani
gudaha iyo dabadaba waxaa laga mahadsantihiin sida ninkale wanaagsan ee aad ugu dadaalaysaan inuu xisbigu gaadho guusha gabagabadhaysta